الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. waxaynu ka soo baxnay qaybtii diinta, haddana waxaynu gelaynaa qaybtii jirka. qofka bini aadamka wuxuu ka kooban yahay jir, maskax iyo ruux. ruuxa waxaa lagu daaweeyaa qur'aanka kariimka ah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wassalaam. jirka markaanu ka hadlayno, ilaahay qofka bini aadamka ah wuxuu siiyey jir, intuu adduunyadan ku nool yahayna jirkaas keliya unbuu helayaa. marka waa ammaano qofka laga doonayo inuu ilaaliyo. ma aha jirka inuu dhibaateeyo, inuu gaajeeyo, inuu dilo, looma ogola. waa ammaano, isagu iskama laha ee waa lagu ammaanaystay. dad badan baa waxay aaminsan yihiin inaan jirka waxba laga qaban karin oo ay dhib badan tahay ilaalintiisa. markaasaad waxaa arkaysaa isagoo calooshiisii 1 mitir ay tahay, isagoo iska ballaartay, isagoo iska weynaaday, ama isagoo dhuubtay oo caato intuu gaajo isku dilay, isbaabi'iyey, ama waxyaalo aan bannaanayn isticmaalay. laakiin aragtidaas waa aragti khaldan. qofkuna jirkiisa wax weyn buu ka qaban karaa. waxa ugu weyn oo jirkaaga walaal u baahan yahay waxa weeye biyaha. jirkaaga intiisa badan waa biyo. waxaadna u baahan tahay biyo fara badan buu jirkaagu u baahan yahay, laakiin waa inay biyahaasu noqdaan kuwo nadiif ah. sidoo kale jirkaagu wuxuu u baahan yahay cunno wanaagsan, wuxuu u baahan yahay cabitaan wanaagsan oo nafaqo leh. cunnadu waa inay noqotaa mid caafimaad leh. maxaan ka wadnaa mid caafimaad leh? sidaad ogtihiin cunooyinka hadda aynu u badannahay dadka magaalooyinka jooga ay cunaan, waxay u badan yihiin cunooyin lagu soo sameeyey warshado. marka waxaa ku badan sonkorta, milixda, xayrtaa ku badan. waxaana ka dhasha arrinta iyada cudurro aada u fara badan oo ka mid yahay dhiigkarku, kaadi sonkorowgu, kolesteroolka, iyo cudurro kale oo fara badan oo culimmadu ay ogaadeen inay sabab u tahay cunooyinkii qofku u qaadanayay. sidoo kale qofku hadduu nafaqo xumo ku dhacdo oo uusan cunno wanaagsan helin, wax badan ma qaban karo. oo waxaa la yidhaahdaa qof walba intuu cuno ayuu ciidamiyaa. marka waa inaad ku dadaashaa cunada aad cunaysa inay noqoto mid caafimaad leh. maxaa laga wadaa? mid isu dheelitiran baa la doonaya inay noqoto, oo canaasirta cunada oo dhan ay ku wada jiraan. canaasirta loo baahan yahay inay cunada ku jiraan maxaa ka mid a? brotiin baa ka mid a. brotiinka waxaa laga helaa mathalan hilibka, waxaa laga helaa kalluunka. sidoo kale carbohydrateska kuwa la yiraahdo ama nasawiyaadka waxaa laga helaa baastada, bariiska, burka iyo wixii lamid a. sidoo kale jirkaagu wuxuu u baahan yahay vitamino. vitaminadaas oo aan ka sheegi karno vitamin A midka la yiraahdo, B oo fara badan, C, D, E iyo K. jirku wuxuu sidoo kale u baahan yahay mineraalo, wax la yiraahdo mineraalo fara badan ayuu u baahan yahay. haddii marka jirkaaga canaasirtu ay isu miisaamnaan waayaan oo qaar ku bataan qaarna ku yaraadaan, jirkaagu sidii la doonayay noqon mayo. tan kale waxaa la doonayaa in qofka miisaankiisa u noqdo miisaan ku habboon isaga iyo dherarkiisa iyo lafihiisa. see lagu garanaya? qofka aadka u cayilan waxaa la ogaaday inuu yahay qof jiran. qofka aadka u cayilan inuu yahay qof jiran ayaa la ogaaday. cudurrada sonkorta, cudurrada dhiigkarka way ku badnaanayaan. maxaa la doonay marka si miisaankaagu u noqdo mid isu miisaaman culayskaagu? waxaan ku siinayaa si aa ku garan kartid oo sahlan oo aan ka faa'iidaystay ninka la yidhahdo Taariq Suweydaan. wuxuu yidhi Taariq Suweydaan, qofka miisaankiisa waxaa la eegayaa, horta dherarkiisa la eegayaa intee buu yahay. hadduu yahay mitir matalan iyo 70, mitirka waad iska tuuraysaa, 70kii santi baad kilogram u bedeleysaa. miisaanka laga rabo ninka wuxuu noqonayaa 70 kilogram. qofka dumarka 10 baa laga dhimayaa, 60 kilogram waa inay noqotaa. saasaa marka miisaankaaga inaa u ilaalisa la dooni. haddii miisaankaaga uu noqdo mid faaxisho culus oo dhib badan, waxa weye lafahaagiibu wuxu dhimayaa, dhiiggaagiibu wuxu dhimayaa, jirkaagiibu wuxu dhimayaa. intaa markaan ka soo baxno, waxaa muhima oo loo baahan yahay qofku inuu jirkiisa ka ilaaliyo waxyaalo oo xunxun oo uu ka ilaalinayo, sida mathalan khamriga, sida mathalan daroogada, sida mathalan haddii alla kuu ron yahay muxuu ah sigaarka, qaadka iyo waxyaalaha lamid a. waxyaalahaas waa waxyaalaha dumiya qofka jirkiisa iyo maskaxdiisa intaba. waxaa jirkaagu kale u baahan yahay cunada ka sokow nasasho.
hurduu u baahan yahay. hurdadu marka intee bay la eg tahay qofku way kala duwanaan karaan dadku. dad yaryar baa jiro hurdo badan u baahan, dad waaweyn hurdo yar, laakiin waxaa dad badan ay aaminsan yihiin 8 saac inuu qofku maalintii uu hurdo. daruuri ma aha. dad waxaa jira macruufa oo siyaasiyiina oo culamaa oo 4 saac kaliya seexda. hurdada marka jirkaaga u baahan yahay inaad qaadatid baa la rabaa. waxaa jirkaaga kale haddana u baahan yahay jimicsi, inaad jimicsatid ama aad cayaartid. dad badan baa waxay aaminsan yihiin inay ceeb tahay qofku hadduu wen yahay inuu cayaaro, oo waxaa laga yaabaa magaalada adigoo cayaaraya sport haddii lagu arko weyn ma waashay baa lagu leeyahay, kanu dharkuu dhigtay baa laleeyahay. maaha, waa u baahan yahay jirkaagu. oo waxaa jira xikmad oranaysa ama isticmaal ama beel. maxaa laga wadaa? gacantan haddaad meel saartid oo aadan ka qaadin muddo sanada way daciifaysaa, 2 sano way sii yaraanaysaa ilaa marka dambe ay noqoto wax aad u yar. haddaa isticmaashidna xoog bay yeelanaysaa. marka caruurtu iyo dadka waaweyn iyo dumarka iyo raggu intuba jimicsi ayay u baahan yihiin. hase yeeshee waxaa jirta cayaaraha ay raggu u baahan yihiin, dumarku waa ka duwan yihiin wax yar. caruurta yaryar mid ka yar bay nooc kale. dadka aadka u waaweyn riyaado gaara ama cayaaro gaaray u baahan yihiin. intaa haddaan kasoo tagno, jimicsiga maxaa laga faa'iidayaa? jimicsiga waxaa laga faa'iidayaa arrimaha soo socda. jimicsiga waxaa ku dhismaya jirkaaga, waxaa ku dhismaya muruqyadaada, waxaa ku dhismaya maskaxdaada, waxaa ku dhismaya neefsigaaga. sidaad u neefsanaysid waa fiicnaanaysaa. waxaa yaraanaya culayskaaga oo wuxuu noqonaya culays oo aan aada u weyneyn. waxaa ku fiicnaanaya in ay xayrtu kugu yaraato jirkaaga. xayrtu jirkaaga hadday ku yaraatana cholesteroolkaagii baa yaraanaya, wadnahaagii baa si fiican u shaqaynaya. wuxuu ka hortegayaa sportigu ama riyaadadu waxay ka hortegaysaa kaadi macaan inuu kugu dhaco. sidoo kale wuxuu ka hortegayaa lafajilica ama hashaashat ulcidaam waxa la yidhah, waa ka hortegaya. wuxuu kaloo wanaajinaysaa jimicsigu inaad si wanaagsan u seexatid, oo qof soo daalay oo soo cayaaray marka hurdo fiican baad helaysaa. wuxuu ka hortegayaa inaad dhaqso u qabowdid. walaal, waxa weeye xikmad waa inaad aada ugu dadaashaa jirkaaga. amaanada ilaahay uu ku siiyana ilaalisaa. wax kasta oo jirkaaga dhibayana ka ilaalisaa, si jirkaagu u noqdo midaad ku cibaadaysatid, midaad ku shaqaysatid, mid aad wax weyn ku qabsatid, si aad u gaartid yoolalka aad leedahay noloshaada. haddii kale waxaad noqonaysaa mid bukooda oo xanuunsada. anigu kuma lihi markaa jirkaaga ilaalisad cumrigaaga dheeraanay, laakiin waxaan shaki ku jirin in cimri intaad nooshahay aad si wanaagsan u noolaanaysid. intaas ayaan kusoo koobaynaa jirka caawa. wabilaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.